بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاها هالكم وحنو ميدان شركة يدين فرو شركة نو فرين سر رسمي انت كدب دور قدم ايام wax ka oran oo ku saabsan hawshan masuulin horta waa ta koobaad agaasimayaasha guud in isla fahmano shaqadooda waayo dadka waxay had iyo jeer dhibaatada u dhacda qofka waa la magacaabaa lama siiyo term of reference war shaqada waa inta waxaa laga yaabaa ninkii isagoo karti badan oo aqoon badan inaan shaqada iyo wax laga doonayba aanu garanayn deetana meel kale uu garaaco deetana khilaaf yimaado isaga iyo wasiirka horta waxaan ku faraxsanahay halkan waxaa u baahan tihiin dad wax kasta ha ahaatee rag mutacalimiin iyo gabdho mutacalimiin halkaa waxaa ka muuqata inaad tihiin dad dalka iyo qaranku ay ku leeyihiin deyn badan master baa qaateen intaasaa soo wadeen waxaasoo dhan qaranku baad ku leh marka waxaa laydin soo dooray marka u horeysa dad aqoon badan leh oo dadku tacab ku leeyahay oo aqoontii la baray dadka ku jiheeya oo hore ugu maraya kow agaasimaha guud waa shaqaale dowladeed siyaasadda xeerka ka reebay xeerka shaqaalaha iyo xeerka doorashooyinku labaduba ay ka mamnuuceen agaasimaha guud iyo jaranka iyo ambasadarka iyo shaqaalaha dowladda eeda ah waaweyn ay galaan laakiin 20 sano dambe waxaa dhaqan noqotay agaasimaha guud iyo dad badan ay u qaataan in talada koobaad ay noqoto inuu xagga siyaasadda dowladdu ku jiro uu soo taageero haddii soo diino dowladda say taageeraysaa waxay taageeraysaa dowladda haddii dadweynaha shaqo wacan loo qabto oo public shaqo wacan dareemo kolba intii taalkeena waa taageertay laakiin hawlaha dadka la shiridooda public relationka shirarka qancinta taa xisbiga qaabilsan dowladda xisbiga ka timid marka waxaynu u baahan in xisbiguna qabto siyaasadii iyo awaalkii dowladdu noqoto executive fuliye dadka u gaarsiiya waxay doonayaan kaas waa qodob horta aan isku ogaan ninka ku daara ee muddo badan shaqeeya ee doonaya inuu uga gudbo marxaladda siyaasadda tan uu iskaga tagaya ta kale waxay danaya laba agaasimaha guud ama dowladda qaarsiga sekretariga joogtadii waa dowladda lafteeda xukuumadda haddaad maqasho waa agaasimaha guud iyo wixii ka hooseeya wasiirku waa meerto madaxweynuhu waa meerto 5 sano joogaan qorshe dhigaan qorshahaasaa la fuliyay qorshaha laga rabaa siyaasiyiinta qorshe horumarineed oo dhibaatooyinka laga baxo sahla yeelo ay dhigaan ayaa laga rabaa laakiin ilaa maalintii ugu horreysay ilaa maanta qorshayaashii la dhigay madaxweynayaashii iska dambeeyey wasiirradii iska dambeeyey cidda fulinaysa wixii nafla ka qaadaysa ee wadaysa ee joogtaynaysa ee dadka inuu xagaarsi laga rabaa waa agaasimaha guud iyo waxyaala la shaqeeya saasaa la dhahaa waa tiir dhexaadka dowladda hadday halkaasi xumaato ma soconaysa dowladdu saddex agaasimaha guud laba wax baa laga rabaa inuu ilaaliyo shaqada weyn uu qabta laba hal buu wax ku fuli karaa midoo waktiga dadkeenu imika jooga waxaan u haysanaa inaynu waktigeenu intuu doono u gaarayo wakti waa wakti yar qof waliba wakti yar buu shaqaynayaa uu gaboobayaa uu dhimanaya geeduna uu baxaa uu soo qalocdaa markaa shaqada yar baad joogaysaa markaa timeka inaad ilaalisaa waa dul timekina sanaduu qaybsamaya biluu qaybsamaya saacaduu qaybsamaya sekaduu qaybsamaya haddaad timekaa ka shaqayso ka faa'iideyso adigu iyo wasaaradda inta kaa hooseyso o dhamme progress baad samaysa cadaaladdu weyneed weeye waayo cadaaladda wax loo qaado waktiga dee xadiis waaba odhanayo bini aadam markuu dhinto waxa weydiya waxa la yidhaha maxaad cimrigaagi maxaad qabatay ku horeysa markaa timeku xaggeena dhaqan ahaan waa ka ciyaar u fiirso dhammaanteen markaynu soo noqdo inta badan kafta baynu ku lumaynaa oo dad waxaan stresska iska ilaaliya aan wax kale ahayn maarta markay waadaan waqti badan oo kaftan iyo maarta waxaan u baahanay entertainment yar marka waqtigu wuxuu ku lumaa wax badan xafiisyada marka qaranka waxaad u haystaan ugu horeysa laga rabaa inaanad ka samayn musuqmaasuq oo cadaalad ku ilaalisa waa waqtiga inaad u shaqayso dadka waqtigaagu dhanna shaqo laguma odhan 8 saacadood baa lagu leeyahay haddaad laba ku dirtana waa khayr inta kale caafimaadkaaga ilaali oo jimciso inta kale carruurtaada ilaali oo reerkaaga ilaali oo cibaadadaada ilaali
maanta way fara badan tahay 8 saacadood qaranku baa laga rabaa inaad si wacan u fuliso waliba mar waqtiga iska qaad qodobka labaad ee u baahan inuu ka shaqeynana waxa weeye dadka waxa wax dhisaa waa waqtiga dadka resource-ka dhaqaale waa kalabaad waa saddex u soo galay dad waqtina hayso dadna hayso adigu xitaa markaas aad wax shaqeynayso marka dadkii in hoos joogay distoorkeena qodobka 37 markuu sheegay dhismaha dawladda wuxuu ka bilaabayaa ummadda Soomaaliland Ilaahay baa karaameeyay iyo qarannimo iyo awoodeeda siiyay ay dalkan ay ku dhaqantahay inay ku maamulato Ilaahay baa siiyay awoodda waa aad quraan karamna bani aadama deetana dadkii qaranka ahaa ee dhulka lahaana waxay u igmadeen awoodda inay u fuliso dawladduna waa saddex dhadhaaro labada kala mid wax wuxuu ka mid wax soo jeedaa waxa loo igmaday executive fulinta xukuumadda loo dhigtay xukuumadda markaa saddex waa un wax furiya madaxweynaha wasiirka agaasimaha laba way fikraan balan bay keenaan madaxweynaha iyo wasiirku fulidii distoorku dawladda saaray ee waaxda fulinta saaray xukuumadda saaray ee madaxweynaha iyo wasiirka la saaray madaxweynaha iyo wasiirka waxay heleen qorshayn iyo kormeer fulintii distooriga ahayd ee ummadda qaranku iyo distoorku u adeegsadeen executive powerku waxay dul timid wasiirka iyo kuwa la midka jananka ciidamada safiirka eeda koobaad marka xilka ina saaran distooriga horta saan u yaray marka waxaan jeclahay inaynu inta aad iyo aad dadka iyo waqtiga aad u ilaalino dadka maxaynu ku ilaalinaa hantidu waxay doon sahaato hanteerada waxsoodo waxa tirahdaa arradna waa dan uskagna waa duqniimo hanteeradu adduunka dhan bay taagantay kuwa aynu joognaa lacag badan ma haystaan kaas dhaqan ma hadana qaba laakiin waxa weeye seed soo maamulaysa dad badan oo inaga liitaa ismaamula dad inaga dhibaato badan baa koray oo soo baxa marka waxa weeye haddaynu yuhunta iyo caqliga iyo soo dhawaadno waan ka gudbinaa dhibaato kasta marka qofku taag dareeyo niyadda ka dib dhisay inuu fikireen buu dhahaa tema dhaqaalan haya dhaqaaluhu ma hatiir weyn qalbiga iyo niyadda iyo aragtida iyo go'aanka ka weyn dhaqaalada abuuray marka agaasimaha guud intaas xil afuushay dadka aad hayso motivation kooda haddii adiga ay ka dhigtaan qof ay ku dayan karaan cibaadadiisa cadaaladiisa hawshiisa aqoontiisa dadku way soconayaan laakiin hadday inta adiga kaa baydhaan kaa duwan adiga kula yaabaan dadka shaqayn maayo hadday cadaalad darro kaa dareemaan oo dadkaa shaqaynaysa cadaalad u qaban weydo oy kugu cadaatay taa kaa helaan hadday cibaado kaa waayaan hadday shaqo kaa waayaan haddaa adiga bilowdaa baatood garka damba qaynayso halkaa fadhiya iyo kaalaya tacid kugu darmayso marka dadka motivationkiisu waa wax kooda ku meel gaarin insha Allah shirkan waxaanu qiimeynaa sanadkii hore maxay noo qabsoomay maxay naga hor yimid maxaynu saxnaa badan oo idin joogaan labada cishooda oo isla baari kolka waxaad soo saaraysaa aynu sanadka dambe wixii qalad ah u saxno halkaynu ka lidinana aynu xoojino ayuu soo saar doontaa hawlo badan baa sanadkii inoo yaalo la ka rabaa inuu hawlgelino sanadkan waxaynu tijaabinay shaqaalaha sida loo qoro dadku gobolada inay ka yimaadaan oo imtixaan Hargeysa u galaan waxay noqotay cadaalad darro way ma soo gaar kara qaar baan ay herin qaar baan iman karin ama Hargeysa aan joogi karin kasta hata waxaan tijaabinay in gobolada la geeyo wixii shaqo la helay lixda gobol baynu geynay 300 oo qof baa shaqadii dadkii markii la baaray shaqaalihii dadkii maqnaadeen dawladda ka maqnaaday intii soo hadhay kun macallin waa la shaqaaleeyay ama waa loo saxay iyagoo mushaarada hore u qaadan jirin 300 gobolada imka laga soo qoray oo u badan wada jaamacadda arday ka baxday oo seenay marka goboladii B iyo C da ahaa waxaan jecelahay waxa ay kharash ku baxay inuu jaamacadda ku aynu shaqada qoraa aynu geyno oo dhaqaalihi xagga ugu bedelo waxaynu nidhi markaa hadee jeer dhibaato ay haysto hablaheena shaqadeena lama gaarin cadaalad darro marmo tirsan hablihii inuu waxaanu hablo guriga iska joogaan rag waa yiraahdaa kolka shaqaalay imika aanu qaadno waxaanu boqolkiiba 30 hablo ka dhigno
sagaashan bay noqdeen iyo 210 talabada qaado charge baa ka soo baxay haddana halkaana dood baa ka timid markay inamada shaqadii la galay dhowr kun oo qof soo codseen inan baa wuxuu keenay markskii 80 habli markii gaar looga qaaday waxa laga inuu marks oo sakeento oo ku soo baxdo rag yaa dacwooday oo soo dacwooday cadaalad ma dastuurku wuxuu leeyahay muwaadiniintu si samba shaqada u dooranaya ya sharci waa marka waay inay habli gaar iyaga imtixaan gaar laga qaado ka iyaga ka yar su'aashaas jawaab inuu ka bahantay habli ma loo ahad bisoo laga ahad iyagana waxay wixii wax gaar qaatay su'aashaas waxa baatay research laakiin mid baan eegaynaa waa dhab hablo imtixaanka inama lama tartami karaan soo badan awood inanku marks kan uu keenay iyo dadaalkan uu keenay kala bar inan taale ka soo qaad adiga walaasha isku class wada shaqeeya iyadu time-keeda inta badan adiga ku shaqeysa marka class ka soo raacdaan ee guriga la soo wada galo inantu isma taagtay cunta ku saysaa maalintii quraacad ayuu ku soo irma cuntid qolkaaga nadiifisaa dharkaaga ku kaawadaysaa hawsha oo dhan hooyad bay la qabataa carruurta kale koraysaa marka time-kii ay wax baran lahayd ama ay nasan lahayd waqtigeeda waxay ku bixisaa juhdiga family iyo adiga waa shaqo aan loo ogeyn adigu inta ama wax akhrisaa ama library tag ama internet wax kala soo bax free time baa haysta marka library imtixaan baa la galay iyadoo waqti ay diyaar garoodaan helin baa laga yaabaa laakiin adigu waqti wada ma haysta marka de marksna ay ku riixayno barb bay ku leedahay de xaq badan cadaalad marka wax lagu celiyo haddii labadeenu waa aynu free noqono de guriga naga baabay qoyska naga baabay marka habluhu marka leeyahay kooshaha loo xiro ama imtixaanka iyo gaar loo eego ma ha weelitaan iyo wajibsan yahay oo ay ka maskax liitaan waxa weey time-koodii iyo energy-goodii waa kan adiga kugu jira isku dhaafayso dadkati marka sadartadii loo soo qaado ayaa xataa shaqada marka loo shaqeynayo inta dhiijiga ah waqtiga adigu shaqeysay iyo firaaqadan haysa in laga ma hayso arootina caruur iyo reerka tabaday soo hagaajisa marka noqotana intii laga basweysa oo time badan beelada haddana 8 saacadood qaranka dee la oran maayo hooyatay ka dhaaf haddii ay jiro duruufaha gaarka ah umusha iyo xanuunka waqtigeeda marka inuu labada tixgelinayna waa inuu hableena soo qaadnaa oo aynu helno dhakhtarad islaama oo Soomaaliyada oo hooyo wanaagsana oo sodoh wanaagsana oo dumaasho wanaagsana oo haddana doctorada oo haddana agaasimada oo haddana professorada hela wana laba mid alwaan marka inamada badan imka ku dacwoonaya waxa lagu gudbayo waxa lagu xadgudbayaa dastuurkii iyo sinaantii oo quotation kuwa qeyr sharci ma qeyr sharci way time kaagi intii baday xagga ku jirta waxbay ku leedahay rag awood u leeyahay la cararayada barle hadana wax la simano waxa naga baabaaya sida Yurubka noqonayna oo runtii ay dayci natural ka iloodo waanu taano tixgelinaa wax kale tijaabinayna oo hawlina wata la shaqadii qaranka imtixaan ku fariisteen 1500 2300 ku ilaa tabo fariistay waxa soo xareedo kumba ka soo xareedo inamada hablaan 500 isoo waa tijaabo dhamaanagaas meesha waxaan ka doonayaa inaad qaybta ugu ka qaataan maadaama uu bilow yahay barnaamijkaasi hawsha aanu ka rabno maxaanu ka rabnaa koow marka hore inuu muwaadin la baro muwaadinimada maxay tahay waa waajibka dalka uu kugu leeyahay marka hore baro dadkaas ku leeyahay baro imika waxaan baranaa unka dalka ku leeyahay waxaan doonayaa adiga maxaa laga doonayaa dad qofka ku soo koro dalku muxuu ka doonayaa dalku wuxuu ka doonayaa inaad naftaada u hurto oo xabado ma hana furido ninka scientist ah sidoo uu raadinayo research ku dhimanaya ama ku inabelay imsan inuu professorada hore u garaana oo aan waliba wax tabcan oo iyagoo daalay oo raamaro oo diyaabtooda ay haysteen misaba mid kale dhaxalka tagay adduunka qol ka saahad European hada Arabaha dadka wax qoro dhami naftooda iloogaana u huraan iyagu marka haystaa wax ma doonaan say dalka hore ugu mariyaan marka waxa laga rabaa inaad ku fikirto maxaa tartaa intaad ku fikirto maxaa wax la tiri waay markaas ma wax qaban kara waxa la rabaa inuu barto isdhexgalka dadkiisa oo internetka ka wada akhriin magaalada joogo gobolka joogo iyo gobolka kale iyo ka China iyo ka Mareykanka inaan internetka ka wada akhriin ee dalkiisa kale yaqaaniyo muxuu doonayaa haddii ka dalka ku dhaqma kara maayo waxa laga doonayaa inuu noqdo kayd shaqaale mar walba oo hal shaqaadu yaqaan talabaad oo barto oo u bedeli karo haday daruuro timaado imika inteenan wax dhakhtar waa nagu wari laakiin hadduu qof imika gaar jiro adoo meel maray dariiq ama accident dhaco waa inaad taqaano qofka waxaad u qaban karto ugu yaraan feeris ay kadii ugu yaraan waa laba shaqo inaad taqaano hadduu dab kaco see wax loo dabi karaa
oo maxaa lagu shooyaa dabkaas ma biyo lagu shooyaa busaa la saaraya waana dee garan kartaa dadka aqoon ku dhanta iyo dhibaato kasta oo inuu qofku raay caam ka haysta dowladda aanu professional ka qura ku ekaan taana waan ku bari doonaa waxaan ku bari doonaa dhalinyarada aqoon habka dowladda u shaqeyso wuxuu yaqaanaa inuu ka akhriyo internetka dowladda soo shaqeeyay madaxweyne baarlamaan oo intaas kaliya dowladda duruufteeda gaar ah leedahay dowladda system gaar u shaqeysa marka inuu ogaado duruufaha Soomaaliland u shaqeysa oo barta u diyaar garoobo hadduu xafiis tagayo uu garanayo duruufaha yaala ama isagu waa maamulka qabtadii oo si barto u yaqaan waxaan baraynaa waxaan ilaa civics dowladda waxay ku baran doonaan inay noqdaan difaaca madaniga inay bartaan difaaca madaniga waa maxay waxa way xaafadda degan imika nin qoro yaqaan xaafadaheenaasi haddii dhibaato ku timaado sida la isku gargaaran marin hadduu cudur dhaco baasani hadduu dhulgariga dhaco hadduu duufaan dhacdo haddii dab kaco haddii rabshad dhacdo xaafado islaayaan difaac haddii cadow kusoo duulo difaac meel waxay qofku inuu yaqaano systemka habka loo nabadgelinayo ummadiisa intaa jaarka tay ka bilow magaalada joogta ka bilow dalka oo dhan ka bilow qofka mutacallimka ah ee aqoonta leh PhD-ga waa inuu taa wax ka yaqaan ma aan sabti qura ku ekaado marka kuwaas la bari waxa la bari isdul qaadashada iyo kala dambeynta waayo qof reeso jaamacad uga baxo ardo ha guriga uga baxay xagga u badla oran marka master buu qaadanaya jaamacad ka sii baxaya si kale u fikra qof wali waa inuu wajal ayuu fikra waa dhab qofku madax banaanada waa inuu baahanay laakiin waa inuu bartaa ismaqalkii iyo wada shaqayntii iyo isdul qaadkii iyo doodii dhexdooda saddex bilood baa ku barayna intaan idinka aqoona the master PhD waxa ka rabaa contribution kiida waa laga yaabaa qaar ka mid inay tagaan jar ka bixiyaan looga maarmo waa mid dhaqaale ka hadla mid politics ka hadla mid waarnimada dowladda ka hadla waan ku soo qordoonaa qaybeed ka mid ah tii alla yiraahdo dadka lecturada bixinaya iyo cidii kale dalka aqoon laba waan bari doonaa barnaamijkana waa inaynu contribution fikradeed inuu hirgalo oo uu tallaabo wanaagsan ku bilaabo aynu soo tagnaa waa ujeedooyinkaanu ka leenahay intaasaan kusoo koobaya aad iyo aad u mahadsantahay wada shaqayn wanaagsan labada cisho ka bacdina inagoo sanadkii horena khatinay dhibaatooyinkii jiray kadibana u diyaar garoobna ka soo bixi doonaa waa mahadsantihiin